halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo qaaday talaabo ka dhan ah kooxda Damul Jadiid xilli weerar lama filaan ah uu ku qaaday mid kamid ah wasiirada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug weerarka loo geystay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale talaabada ka dhanka ah uu qaaday madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Dani taa oo lama filaan ku noqotay xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xogaha ugu dambeeyay dagaalka dhawaan soo ifbaxay ee u dhaxeeya Damul Jadiid iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kalena waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo safar aan la shaacin ku tagi doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya isagoo la sheegay inuu kulamo kala duwan la soo qaadan doono Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed sidoo kalena warar aynu heleynana waxay tibaaxayaan in Ra'iisul Wasaaruhu ka codsan doono Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya in uu ka qayb qaato dagaalada ka socda gobolka kamid ah Soomaaliya iyo sidoo kale in dib loogu soo celiyo Soomaaliya ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea xogii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xogo qarsoon oo ka soo baxayo kulamada ay yeelan doonaan iyo safarka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare ayaan idin wadaagi doonaa xogaha kalena waxa kamid ah deegaanka iyo Sooman ee gobolka Hiiraan waxa ka dhacay dagaal la isku farasaaray oo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda iyo Al-Shabaab sidoo kalena wararku waxay tabinayaan dagaalkaasi oo muddo saacadaha qaatay inuu dhaliyay khasaare kala duwan xogii ugu dambeeyay dagaalka iyo Sooman iyo sidoo kale saraakiisha dawladda oo sheegay inay saraakiil iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaan dhaca waqooyiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe xogii ugu dambeeyay dagaaladaasi ka kala dhacay ee gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qaybtana kuwaas iyo kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa insha Allah balse aynu ku bilaawno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa qaaday talaabo ka dhana maamulka iyo sidoo kale kooxda Damul Jadiid xilli uu soo ristaa ku sameeyay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Bare Maxamuud oo tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta maamulka gobolka Mudug sidoo kalena wasiirku waxa uu degay qaybta Galmudug sidoo kalena waxa uu xalay kulan la lahaa dhalinyarada ku midaysan magaalada Gaalkacyo kana shaqeeyay nabadda iyo isdhexgalka magaaladaasi kulankaasi waxa ay soo ristaa ku sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani amar ka soo baxay ayaa lagu joojiyay dhanka kale Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu maalmihii la soo dhaafaba ataagayay xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xilli uu soo ristaa ku sameeyay wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya oo doonaya inay tagaan qaybo kamid ah maamulkiisa Puntland wasiirka qoraal uu ku soo daabacay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in go'aankani uu yahay go'aan ka soo baxay maamulka sare ee Puntland waxa uu sheegay in laga dambeeyay sidoo kalena la doonayay in lagu carqaladeeyo kulamada uu la yeelanayo dhalinyarada uu wasiirku u yahay wasiir Maxamed Bare Maxamuud oo dhawaanahan tagay magaalada Gaalkacyo sidoo kalena ka qayb gali doona bandhiga nabadda ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmi doono dhalinyarada labada dhinac ay ku midaysan sidoo kalena ka shaqeeyay nabadda magaalada Gaalkacyo oo maalmudooyinkii la soo dhaafay sidoo kale sanadihii la soo dhaafay kuna loonaysay nabadii ay ka shaqeeyeen dhalinyaradaasi wararka inuu ka helino magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna xarunta maamulka Puntland ayaa waxay tibaaxayaan in Siciid Cabdullaahi Dani uu qorsheynayo inuu ka hortago arin ay damacsan yihiin baarlamaanka Puntland sidoo kalena wararka ay helayso qubnaha TV waxa uu tibaaxayaa in dhawaan la isku qabsaday xubnihii la horgeeyay baarlamaanka Puntland sidoo kalena xubnahani waxa horkacayay ninka lagu magacaabo Axmed Yuusuf Taaraan kaas oo uu xushay inuu noqdo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland dadka agdhow Siciid Cabdullaahi Dani qadiyadana aad u yaqaana ayaa waxay sheegayaan inuu sameynayo wax kasta oo ugu kacayso si ay xubnahani magacaaban u heli lahaayeen codka kalsoonida Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale ku mintidaya in xubnahani uu soo magacaabay inay helaan codka kalsoonida ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Dani oo ku guda jira sanadkii ugu dambeeyay ee muddaxileedkiisa madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland ayaa ku fikraya in bilooyinka uu haray uu ka shaqeeyo qorshayaal uu baaqi ku sii ahaan karo xukuumadda ee maamulkiisa si uu mar kale ugu tartamo jagada maamulka Puntland iyo sidoo kale inuu u hanqal taagayo 2026 doorashada ka dhacaysa magaalada Muqdisho ee lagu baratamayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya xilli uu dhowr mar ku guul dareystay inuu helo ama jagadaasi uu hanto
dhanka kale saadiyeenu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaa la filayaa inuu gaaro magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya sidoo kale safarka ra-iisul wasaaruhu xogaa laga helay waxay tibaaxayaan in uu doonayo inuu kala hadlo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya sidii loogu soo celin lahaa Soomaaliya dhalinyarada lagu tababarayo dalka Eritrea oo la sheegay muddooyinka dambe soo ifbaxeen in lagu haysto lacag aad u tiro badan oo la doonayo in looga dhigo madax furasho madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasi Afwerki ayaa sheegay in lacagtani la doonayo inay bixiso Soomaaliya sidoo kalena agaasimaha Nisa Mahad Maxamed Salaad oo ku sugan dalka Qatar waxa uu kulamo daceedyo la yeelanayaa madaxda dalkaasi si uu ula xaajoodo in dib loogu soo celiyo dhalinta lagu tababarayo dalka Eritrea sidoo kale agaasimaha Nisa waxa uu madaxda Qatar kala hadlayaa sidii ay uga bixin lahaayeen lacagta ay doonayso Eritrea maadaama uu sheegay inaysan awoodin dawladda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa arintani waxa uu saameyn weyn ku leeyahay sidoo kalena ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasi Afwerki sidoo kalena ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu danaynayaa inuu ninkani noqon doono ninkii furfuri lahaa sidoo kalena ka shaqayn lahaa arrimaha la isugu soo dhaweynayo madaxweynayaasha dalka Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale warar aynu ka heleyno xafiiska OBM-ka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaruhu sidoo kale kala hadli doono inuu ka caawiyo ama sidoo kale qayb ay ka noqoto dalka Itoobiya howlgallada lagu xireynayo qaybo kamid ah gobolada dalka sidoo kalena ay qayb ka noqdaan dagaalka xilligan ka soconaya qaybo kamid ah gobolka Hiiraan oo ay sheegeen in ciidamadoodu ay xilligan ka soo gaari karaan sidoo kalena ay qayb ka noqon karaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya qodobada kale uu kala hadli doono ay kamid tahay in ay qayb ka noqdaan dhanka kale koonfur galbeed iyo sidoo kale xaduudda deegaanka Soomaalida al-shabaabka ku jira sidii looga soo saari lahaa markaana haddii aynu eegno war ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay dileen dad xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena dagaal ka dhacay deegaan waqooyi dhaca degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalkan oo ay sheegeen inuu ahaa mid qorsheysan ayaa saraakiisha horkacaysa waxay sheegeen inay ku dileen 4 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab waxa intaasi ku diray inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo ay sheegeen in howlgalku ay ku qabteen dhanka kale gobolka Hiiraan waxa ka soconayay maalmihii la soo dhaafay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda iyo al-shabaab maanta dagaal waxa uu ka dhacay deegaanka loo yaqaan Masooman oo ku yaala deegaanka Sooman ee ku yaala gobolka Hiiraan dagaalkani oo qaatay muddo saacadaha ayaa waxa la isku adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena labada dhinac waxa jiro qasaare ka soo kala gaaray dagaalkaasi balse ila ka madax banaan oo xaqiijin kara qasaaraha soo gaaray macado balse dhanka dawladda hadii inuu ka hormarno waxay sheegeen inuu jiro dhaawacyo soo gaaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macawisley dhanka kale al-shabaab hadii aynu eegno ma jiro war ka soo baxay oo ay ku sheegeen ama ku faahfaahiyeen dagaalka ka dhacay deegaanka Sooman balse ila ka madax banaan labadoodu oo xaqiijin kara dhaawacyada iyo dhimashooyinka ka soo kala gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Sooman ma jiro xogaha ugu dambeeyay dagaalkaasina halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal xogii ugu dambeeyay wararka aad kala socoteen qubnaha TV-na xilligan inta ayuu ku eegayaan